سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله ما هدله دكتور حسن محمد آذن دكتور حسن محمد آذن وقاس شيخ محمد دكتور حسن محمد آذن دكتور حسن محمد آذن سدح إيو اللواتن أفر إيو اللواتن شن إيو اللواتن لح إيو اللواتن marka aniga waxaan leeyahay inaan sheego natiijada meesha ka soo baxday maxay yeelay awoodii iyo shaqadii istolku noo dhiibto waaye amaanada noo dhiibtay inaan sheegno waxaan ilmaamay waxa lagu tashaday labada qoys oo hooso oo labada wiil ay ka kala dhasheen in ayaga tabankooda ruux la bixiyo gooni loo bixiyo ay cod ridin oo inta kale ay qabiilka ay codayaan qofkii qabiilku loolama ay soo saaraan marka qof la shiinday ma laha labada wiil waa siman yihiin karti waa leeyihiin xilka waa qaban karaan laakiin waxay gaari mar in tala la gaara oo qabiilka astasha oo qofkii ay ku tashtaan ay soo saaraan marka anigoo ku dhawaaqaya afkeyga iyo afkii tolkii faay awoodii lii idmay oo tolkaas ii dhiibay suldaanka cid hadaan nahay waxaan rabaa inaan natiijada ku dhawaaqa natiijadana qofna ma reynin waxay tolku meesha iskugu imaadeen ay u codeeyeen walaalkeen ugaas sheekh 8 qof ayaa u codeysay walaalkeen Dr. Xasan Maxamed Aadan waxa uu codeysay 111 qof ayaa u codeysay marka waxaan meeshan maanta aan ku shaacinaa in guusha ama ay tolka isku raaceen in Dr. Xasan as-uulama kursiga governor asoo cid ku mathalahaya aan reewajeer u gudbina oo tolkana ay nala wada qaataan intaas ayaan ku soo gabagabeynaa wabillahi tawfiiq insha Allah si rasmi ah ayaan biri u shaacin doonaa meeshii hoolkii qabiilka isku lahay raay walba waxa laga soo qaaday 10 qof ayaa laga soo qaaday 14 raayood waxay noqon lahayn 140 ayaa laga rabay inay codkooda maanta ka dhiibtaan oo mathalaya qabiilka aan ka dhalanay oo faay mathalaya ayaan rajaynayn markii dibli iskugu noqday waxa la yiri labada raayood ama labada xibnood oo nimanka walaalaheen ay ka yimaadeen ugaas Sheekh Maxamed iyo Dr. Xasan inay ka istaagaan oo in codkoodana ay dhiibinin faayga fiyow oo talka ah oo godobnimo leh ayagoon in u xinaynin ay codkooda dhiibsadaan ayaa looga tagay 120 maantana waxaad arkaysiin 119 ayaa codkooda dhiibatay Dr. Xasan wuxuu helay 111 ayuu helay ugaas Sheekh Maxamedna wuxuu helay 8 qof markaan intaasayto walaalayaal inaad ogaatiin talka ay ogaadaan ummadda reer wajeer ay ogaadaan meel ay joogaan ba ay ogaadaan nimanka maanta aan u cilaaminayna inuu noo qaada xilka qoyskan xilka dagoodiya xilka reer Soomaalida meel ay joogaanba ajuuraanka ogaadeenka meel ay joogaanba hatta koona tara meel ay joogaanba xibnaha wajeer degan wajeer waa ogsoontina umar qabiil male nin le male waa la isku leeyahay cid walbana waa degantahay laakiin ninka aan qoyskan u soo qaadnay oon aaminsanahay inuu xilkana qaadi karo inkastoo labadooda ay qaadi kareen laakiin ay isku soo raacday beeshifay waa Dr. Xasan Maxamed Aadan inaa saas ogaatina rabnaa dadweynahan waa u bandhigaynaa talka kale oo ummadda meeshan joogna waa u bandhigaynaa biri meesha ka bilaabata ugaasiinta iyo suldaanka ofisiyaalkooda iyo saldhigooda xurunta ah waxaan ku soo banaynaa press briefing meel yara dadweynaha ayaa loo hadlaa biri 4 saac talkana ha imaadeena meeshaasaan warbixin kaamil leh aan ku dhiibaynaa sidaas ogsoontihiin inaan saas ogaatiin ayaan rabnaa faayo waa sharaf waa sharafti waa ilaahay ha in sharaf
sidaad walaalkay sheegay arrimahan waqti dheer ay soo socdeen laakiin hadda si fiican oo ilaahay aad nooga dhambeey marka waxaan rajaynaa berrito inaan isu imaan oon codkayda aan dunidu iyo dadweynaha wajeer aan u dhibto insha allah marka taas aan ku soo gaabinaa waa bilaahi tawfiiq